xafladda qalinjabinta dufcadda 15aad ee jaamacadda Jigjiga oo ay ka qalinjabiyeen 190 arday oo baratay waxbarashada digriga heerka koowaad iyo labaad ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan, madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Bashiir Cabdillaahi, wasiirka waxbarashada deegaanka Mudane Cabdullaahi Cabdi, komishineerka komishinka booliiska dowladda deegaanka Soomaalida General Cabdi Cali Siyaad, ardayda qalinjabisay, waalidiin iyo marti sharaf kala duwan. madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Ibraahim Cusmaan Faarax ayaa sheegay inay muuqdaan dadaallo wanaagsan oo ku saabsan nidaamka barasbarasho iyo kor u qaadida tayada waxbarasho. waxaa maanta farxad gaar ah inaan inaga soo qayb galo munaasabaddan qalinjabinta ee dufcadda 15aad ee jaamacadda Jigjiga. waxaan idin leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo. saan wada ogsoonahay waxbarashadu waa tiirka muhiimka ee horumarka bulshada. saas darteed jaamacadaha deegaankeena ku yaal waxay dadaal ku jiraan in tayada waxbarashada ay kor loo qaado, sidoo kale baahida ka jirta deegaan ahaan in maaragtay wax laga qabto. saas darteed barashada iyo daraasadyada kala duwanba waxaa muuqda dadaallo kala duwan inuu hadda ka jiro deegaankeena. deegaan ahaan waxaanu isla qaadanay tayada waxbarashada in wax laga bedelo. hadda ardayda maanta joogta waa ardaydii ugu horeysay ee qaatay imtixaankii laga baxayay jaamacadda. deegaan ahaan tayada waxbarashada wax badan oo dhaliilo ka jira ayaa jira. in wax laga qabto waxaanu isla qaadanay bulshada deegaanka, ka qaybgalka bulshada inaanu kor u qaadno, sidoo kale tayada macallimiinta in wax laga bedelo, adeega aasaasiga ama xarumaha waxbarashadana in maxaan ku dhahday wax laga qabto. saas darteed anuu ka faa'iideysanayo fursaddan waxaan ugu baaqi lahaa bulshada ku nool deegaankeena, dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, in aan dadaalkan in hadda wadno een ku tayaynayno waxbarashada ee loogu talagalay iskuullada ka jira deegaankeena ama degmooyinka gaar ee dayactirka u baahan, ballaadhinta u baahan, tayaynta kala duwan u baahan inay nagala qayb qaataan. abaabulkeen hadda wadno waxaan ku tala jirnaa in deegaan ahaan waxbarashada hadda ka hor qaabkeen u wadna inaan wax ka bedelo. saas darteed waxaa fursad maanta inoo ah ardayda deegaankan u dhalatay ee maanta ka qalinjabiyay jaamacaddan inay abaabulkaan wadno si toosa ay nagula soo biiraan, bulshadoodana sidoo kale baahida ka jirta inay wax ka qabtaan. ahaan dadaaladii la sameeyey sanadkan jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Daharba, arday badan ay dhaafiyeen imtixaanka jaamacadda ee ugu dambeeya ama exit examka ayaa jira. sidoo kale ardayda jaamacadda galaysa waxaa loo baahan yahay in hadda ka hor qaabkay ahaanaysay in wax aanu ka bedelo. sanadka hadda waad ogtihiin ardayda jaamacadda gashay aad bay u tarayihiin. tahay waxayna tusaysaa meeshaanu taagannahay maanta waxbarasho ahaan in wax laga qabto. waxaa loo baahan yahay ka qaybgalka bulshada iyo bahda waxbarashadu inay wax ka qabtaan maxaan ku dhahday tayaynta waxbarashada. sidaas darteed dadaaladeen wadno insha allah waanu sii xoojin doonaa. mar labaad waxaan idin leeyahay
hambaliyo hambaliyo hambaliyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhankiisa madaxweynaha jaamacadda jigjiga Dr. Bashiir Cabdilaahi ayaa sheegay inay wadaan daraasado iyo qorshayaal kor loogu qaadayo waxbarashada jaamacadda. waxaan jecelahay inaan farxadda maanta la qaybsano dufcaddii 15aad ee ka qalin jabisa jaamacadda jigjiga. saad la socotaan deegaankeennu jaamacado ma lahayn muddo 20 sano ka hor. waa jaamacaddii ugu horeysay ee 2007 laga aasaasay dowladda deegaanka Soomaalida. waxaa arintaasi ay farxad labaad haddana noo tahay markii jaamacadda Qabridahar la aasaasay oo runtii bulshada deegaankan oo waqti dheer baahi badan xagga waxbarashada u haysatay ay fursado ballaaran u heleen in ay wax ka bartaan. jaamacadda jigjiga waxay ka mid tahay jaamacadaha soo koraya ee mustaqbalka la rabo inay noqdaan jaamacadaha ama applied-ka xirfadda ardayeed xagga warshadaha ka soo baxaan in aanu wadamada jaarka iyo online-kaba mustaqbalka haddii alla idmo inaan furno. waxaanu sanadka qorshaha noogu jirta mudane madaxweyne inaan markii ugu horeysay ka furno programka ama PhD programka jaamacadda jigjiga. runtii kaas oo baahi badan loo qabo mustaqbalka aan jecelnahay dad xirfad leh oo dadkeena xoolo dhaqatada waxbarasho la xidhiidha iyo cilmi baadhis intaba ay ka soo baxaan. inta haddaan guud ahaan jaamacadda kaga baxo waxaa maanta halkan ka qalin jabinaysa sida madaxweyne ku-xigeenka jaamacaddu sheegay arday 190 oo isugu jirta arday digriiga koowaada iyo digriiga labaad. ardaydaasi waxay soo wada waxbarashada waqti dheer qaybta weliba digriiga koowaad waxay sanadka qaateen imtixaankii koowaad oo waddanka lagu soo rogo ardaydu markay qalin jabinayaan. waxaan rabnaa mustaqbalka in ardaydaasi ay nagala qayb qaataan sidii mustaqbalka waxbarashada aan waddanka u gaarsiin lahayn sidaan dadkeenna ugu adeegi lahayn intaba. wasiirka waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdulaahi Cabdi Aadan ayaa sheegay in ardaydan ay tahay ardaydii ugu horeysay ee qaadata imtixaanka gaarka ee jaamacadaha lagaga qalin jabinayo. runtii waxaa farxad maantii ah inaan kala soo qayb galo munaasabadan qalin jabinta ay maanta ku qalin jabinayaan arday gaaraysa ilaa 19. waxaan dhihi karaa munaasabadan waxay kaga duwan tahay munaasabadihii hore markii koowaad ee ardayda dhammaysay jaamacadaha imtixaankii exit examka ama imtixaankii jaamacadda kaga baxayeen qaateen isla markaana la xaqiijiyey in ay yihiin kuwa u qalma inay qalin jabiyaan. runtii waxaan mar kale u mahadcelinayaa jaamacadda jigjiga oo runtii maanta munaasabadan aynu u fadhinay ah dufcaddii 15aad ay ku qalin jabinayaan ardaydii dhammaysatay waxbarashada qaybaheeda kala duwan dadaalka iyo juhdiga ay geliyeen in maanta halka ay waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo. ashada runtii maanta farxad bay inoo tahay maxaa yeelay waxaan doonaa xoog kuwaasoo u noqon doona aqoon xirfad qayb ka noqon doonta dadaalka loogu jiro horumarka deegaanka iyo dalkaba. mar kale waxaan runtii aan ku boorinayaa jaamacadda iyo dhammaan bahda waxbarashada sida hadda in aynu ku dadaalno in ardayda aynu sida ay tahay waxbarashadooda u xaqiijino isla markaana aynu hubinno ardaygan dhammeeyey waxbarashada ama dugsiga sare kale oo hadda naftirkeedu imtixaankooda qaadan doonaan iyo kuwa jaamacadaha inay noqdaan kuwa sidan oo kale loo xaqiijiyey. isla markaana waxaan runtii ku kalsoonahay aqoon-yahanka ama ardayda hadda qalin jabinaysa in xirfadooda aqooneed ay uga faa'iideyn doonaan bulshada iyo dhammaan qaybaha horumarinta deegaanka iyo dalkaba. mar kale waxaan leeyahay hambalyo. waxaa runtii farxad noo ah dhammaanteen in arday intaan la eegay maanta jaamacadda jigjiga ka qalin jabiso ah dufcaddii 15aad oon dhihi karo waa jaamacaddu waxay u taagan tahay ama ay tahayba tiir muhiim ah oo ah horumarinta deegaanka isla markaana inay soo saarta aqoon-yahan xirfadlayaal iyo dad waxbartay oo qayb ka noqda horumarinta bulshada deegaanka iyo dalkaba. mar kale hambalyo aad baan ugu faraxsannahay. waan idiin hambalyeynaynaa dhammaan ardayda waalidiinta bahda waxbarashada cid walba oo qayb ka ahayd baga ayaad u faraxdeen bagaad maanta u soo gaadheen. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.